maamulka dugsiga sare ee Soos magaalada Sheekh ayaa maanta guddoonka wasaaradda waxbarashada maamulka degmada iyo guddiga abaaraha ee degmada Sheekh oo isku duuban ku wareejiyay lacag dhan $1405 oo kaga qayb qaadanaya abaaraha baasan ee ku habsaday deegaanada hoos yimaada degmada Sheekh ee gobolka Saaxil waxaana ugu horeyntii halkaas laga soo jeediyay maamulka dugsiga Soos oo ka warbixiyay deeqdaasi anigoo ku hadlaya magaca maamulka dugsiga Soos ee Sheekh macallimiinta iyo shaqaalaha kale waxaan halkan maanta aan ku soo ururnayna waxaan doonay inaan ka qayb qaadano abaaraha ka dhacay wadanka gaar ahaan magaalada Sheekh iyo tuulooyinkeeda marka lacag 1405 ayaa waxaan intaydaasi insha Allah waan rajaynaynaa inaan wixii dambana ee wadanka yimaadana inaan ka qayb qaadano وعايزنا halkaas laga soo jeediyay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee degmada Sheekh Maxamed Ibrahim Xaaji Cabdullaahi oo uga mahadnaqay maamulka dugsigaasi Soos deeqdan lacageed ay ku wareejisay deeqdan lacageed ay kaga qayb qaadanayso daaqulaynta dadka ay abaaru u sameeyeen kaga mahadnaqayna ardayda iyo macallimiinta iyo maamulka iyo shaqaalaha dugsiga sare ee Soos oo maanta halkan keenay lacag ay ku talagaleen booyado biyaha oo 3 booyado kor dhaafiya booyadaha waxay ku talagaleen degmada Sheekh tuulooyinka xukunto oo abaar baan biyaha laga soo sheegay loo dog yahay sidaa ogeed golaha deegaanka ee halka fadhiya oo hogaaminaya madaxweynaha degmada xogayaha dowladda hoose iyo macallimiinta maamulka dugsiga sare Soos iyo chiefkii ardayda Soos dhammaantood halkan loo wada fadhiyo sidii loo qaybin lahaa booyadaha biyaha lacagtaas loo bedelay booyado ugu dambeyntii waxa isaguna halkaas ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka degmada Sheekh ahna kusinaha gudoomiyaha degmada Cabdi Cardan Xaaji Abakar oo goobjoog ka ah wareejinta lacagtaasi isaguna ugu dambeyntii lacagtaasi ku wareejiyay guddiga abaaraha degmada Sheekh waxa kala wareegay lacagtii jumladka abaaraha ay Soos noogu deeqday gudoomiyaha waxbarashada degmada Sheekh Maxamed Ibrahim Xaaji Cabdullaahi oo $1405 aad baan ugu mahadnaqayaa dugsiga Soos waa maamulihii iyo ku-xigeenkii iyo gudoomiyihii ardayda saddexdu way nala fadhiyaan iyadoo lacagtaas ay gaari doonto gurmadka abaaraha degmada Sheekh biyo la'aan ay ka jirto oo xildhibaan golaha deegaanka ah oo isagana booyadaha xilsaaran inta booyadooda ay noqdaan إنه هدي الله يقطع هالك كتياريو أيام عشرة يوم كذي سوينا كوريتشينيا عشان محمد أحمد سامع وحلي بنجيب كم قاعد بينو عشرة كوريتشينيا هدي الله يقطعه أنت بويدا دي نقطة نيسا هدي الله يقطعه صوصا دونا لقونا ليس أيام من خلفه كسومي دونا واحد نقل تير دونا تورين كأي هدي الله يقطعه بيلانت وبريء قلبي تكمل الشيخة تقول gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka degmada Sheekh ahna kusinaha duqa degmada Sheekh waxa uu booqday goobay dowladda hoose degmada Sheekh ay ka wado qashin gurid ay kaga taxadirayso in roobka ugu urto goobahaasi iyagoo halkaasina ka gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka oo ka warbixiyay qashin qubkan ay ka wadaan magaalada Sheekh isagoo sheegay in muddo 3 maalmood ay socon doonto qashin qubkan ay ka wadaan gudaha deegaanka Sheekh inaanu ilaa 4 وحيد المقعد كسور شغل أيضا نحكمه في حشيش الحياة قطعة حاليا دولة غسة وواحد يجي نظافة أما الحشيش كاتي الله يقطعه أنا بيجري بلا ساكن اللي خوف مربي ما داني ما تعرف ما دخاني ومحمد علي أحمد كابي تي في عالمي الصومالي نيوز مقرب الشيخ